maamulka gobolka Hiiraan oo ciidamada howlgalka midowga Afrika kala wareegay qalabka wacyigelinta oo loogu talagalay COVID-19 qodobkaasina waxayna faahfaahinay wariyahena Cabdinuur Ismaan Aadan Caris Cabdinuur Honesty saraakiisha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM qaybta dalka Djibouti ayaa maanta qalab caafimaad oo ah wacyigelin ayaa maanta waxay ku wareejiyeen gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jaati Cismaan waxaana goobta ku sugnaa ururka haweenka mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada iyo saraakiisha ciidamada AMISOM wareejinta qalabkan caafimaad kadib ayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada AMISOM iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan waxay kulan ay ku yeesheen hoolka shirarka maamulka gobolka Hiiraan waxaana ugu horeyntii qalabkan faahfaahin ka bixiyay ciidamada AMISOM oo qalabkan ku wareejiyay ururka haweenka gobolka Hiiraan on saaka u nimidnay inaan ku wareejino qalab AMISOM noo soo dhiibtay oo lagu wacyigelinayo bulshada beledweyne say uga hortagaan cudurka dilaaga ee coronavirus 19 sharaf waxay noo tahay inaan la shaqeyno gudoomiyaha iyo ururka haweenkaba si loogu wacyigelinayo loogu hortagi lahaa inta kadib waxaa qalabkan ka mahad celiyay xubno kamid ah ururka haweenka iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan maanta qalab waxaan soo gaarsiiyay AMISOM ciidamada reer Djibouti oo qalab wacyigelin halkaan noogu keenay agabkiisii inta kale insha Allah noo soo dhameystirayo ayagan aad ayadu mahadsan yihiin markasta ayagoo garab taagan reer Hiiraan ahaan waxaan ka codsanaynaa annaga ahaan oo haween ahaan inay noo keenaan maadaama ay noo keenaan warqadihii oo coronavirus-ka lagu wacyigelinayo dadka bulshada ay noo dhimantahay saabuuntii gacmaha lagu dhaqan lahaay caagadihi la sameyn lahaay oo waxa waaye dadka tabarteeda waxa laga yaabaa inay haysan saabuun sidoo kale geedi kale oo dhiinka ahayd oo gacmaha lagu dhaqanayo sheegta ahayd midkiis fara kulmo ku hayaan ognahay inay maanta ay door bidaan ay noo keenaan qalabkii wacyigelintii iyo wixii markaas looga hortagi lahaay aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay xaqiiqatan waxaan leenahay arintaas waxa waa arin la iloobi kara ma aha gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jaati Cismaan ayaa u mahad celiyay ciidamada AMISOM sida wanaagsan had iyo jeer ay u garab taagan yihiin bulshada reer Hiiraan waxaa maanta ay noo keeneen ciidamada AMISOM qaasatan kuwa heel walaal agab wacyigelin oo cudurkan dilaaga ah ee corona يعني لوجا وعي جلنا يا برشلة ومال والبا iyo masaajida iyo maxaan ku radaa suuqa qudaarta iyo meel kasta oo bulshadu ay ku kulanto iyo meel kasta oo derbiya lagu dhajinayo kuna qoran afka Soomaaliga oo qof kasta ay fahmi karayo ayadoo laga wareeganayo tilmaamaha uu bixinayo laga faa'iideysanayo qoraalkaas waxaan dadka leenahay shacabka reer Hiiraan ama Soomaaliyeed ama hada ka faa'iideysan karaya qoraaladaas derbiyada ay ku dhagan yihiin inay raacaan faritaanka qoraaladaas farayaan oo ay sameeyaan waxyaabaha laga wacyi gelinayo ay ka fogaadaan Cabdinuur Ismaan Aadan Caris wadan radio and TV beledweyne